Itoobiya dagaal aan weli dhammaan iyo khatar cusub oo geeska Afrika soo food saartay. Itoobiya ayaa mar kale wajahaysa xaalad amni oo aad u cakiran iyadoo dagaallo iyo iska hor imaadyo hubeysan weli ay ka socdaan qaybo ka mid ah dalka Itoobiya, gaar ahaan gobollada Amxaarada iyo Oromiya. Gobolka Amxaarada, ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa weli dagaal kula jiro maleeshiyaadka Faano, iyadoo colaadan ay sii xoogeysanayso tan iyo markii 2023 uu bilowday dagaalka u dhexeeya Itoobiya iyo kooxahan. Weli saameyn ayay ku leedahay deegaano badan. Warbixino la daabacay 2026 ayaa muujinaya in dagaallo ay ka dhaceen qaybo badan oo ka tirsan Wollo, Gonjam iyo Gondar. Inkasta oo ay dowladda Itoobiya ay horraantii 2026 heshiis nabadeed la saxiixatay qaar ka mid ah dhinacyada Faano, kooxo kale oo hubeysan ayaa weli sii wada dagaalada, taas oo muujinaysa in heshiisyada nabadeed aysan weli soo afjarin colaadaha. Dhanka kale, Oromiya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya dowladda iyo Oromia Liberation Army oo la soo gaabiyay OLA, iyadoo warbixinadan ay sheegayaan in iska hor imaadyada ay weli ka jiraan meelo kala duwan oo gobolka. Xitaa xilligii doorashada 2026, xaaladda amni ayaa noqotay arrin walaac weyn ay ka qabaan dadka, waxaana intaa dheer xiisada ka jirta waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan Tigray, halkaas oo xiisada siyaasadeed iyo mid militariba ay weli ka soo cusboonaadeen. Dowladda Itoobiya iyo ciidamada la safan TPLF ayaa mararka qaar isku dhacaya, taas oo kordhinaysa cabsi laga qabo in colaadda waqooyiga ay dib u qaraxdo. Maxaa Itoobiya ka dhigay meel khatar ah? Dhibaatadu ma aha ayaa leeyahay oo keliya dagaalka u dhexeeya dowladda iyo kooxaha hubeysan. Waxaa sidoo kale jira khilaafaad siyaasadeed, murano qowmiyadeed, iyo loolan ku saabsan awoodda dowladda dhexe iyo tan gobolka. Haddii dagaalada Amxaarada iyo Oromiya ay sii socdaan, halka waqooyigana xiisadu kor u sii kacayso, waxaa sii adkaan kara xaaladda amni iyo bini'aadantinimo ee dalka. Itoobiya waa mid ka mid ah dalalka ugu muhiimsan ee geeska Afrika. Sidaas darteed, xasilooni darro ka dhalata gudaha dalka Itoobiya waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dalalka deriska la ah iyo guud ahaan gobolka. Su'aasha taagana waxa ay tahay, dowladda Itoobiya ma awoodi doontaa inay dagaaladan ku soo afjarto wadahadallo siyaasadeed, mise colaado kala duwan ayaa sii fidi doona gobolka oo dhan? Waxaan idinla socodsiin doonaa wixii ka soo cusboonaado xaaladda Itoobiya. Haddii aad halkaan la soo gaartay, barnaamijka meel fog gaarsii oo like iyo share nagu casuun.